Turkiga iyo Rwanda ayaa ku heshiiyay inay sare u qaadaan iskaashiga iyo xiriirka laba-geesoodka ah ee dhinacyada amniga, difaaca, dhaqanka, dhaqaalaha iyo waxbarashada sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Anadolu. Maanta waxaan saxiixnay laba heshiis oo kale oo iskaashi ah. Waxaan doonaynaa inaan sii wadno iskaashiga dhanka dhaqanka, sayniska, tiknoolajiyada iyo hal-abuurka. waxaan go'aansanay inaan kordhino iskaashiga dhinaca amniga iyo warshadaha difaaca, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Turkiga isagoo uu barbar taagan yahay dhigiisa Rwanda. Waxa uu sheegay inay ka wada hadleen arrimo badan oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha, dhaqanka, difaaca iyo waxbarashada. sida ku xusan heshiiska iskaashiga guud ee aan hadda saxiixnay, waxaan samayn doonaa guddi joogto ah oo wadajir ah, ayuu yiri isagoo intaas ku daray inay noqon doonto hanaan kale oo ay ku qiimeyn karaan dhammaan dhinacyada xiriirka labada dal. Ankara waxa kale oo ay doonaysaa inay howlgeliso habka wada tashiga siyaasadeed ee la aasaasay sanadkii 2016 mar uu soo qaaday arrimaha ganacsiga ee labada dal, ayuu yiri xiriirkeena ganacsi iyo dhaqaale ayaa si xawli ah u kobcaya. miisaanka ganacsiguna wuxuu kordhay in ka badan 5 jibaar 3 sano ee la soo dhaafay. waxay ka dhigan tahay inay jirto suurtagalnimo baaxad leh, ayuu yiri isaga oo intaas ku daray inay labada dal tahay inay iska kaashadaan sidii loo kordhin lahaa miisaanka ganacsiga. sidoo kale maalgashiga Turkiga ee Rwanda waxa uu gaaray ku dhawaad $500,000. waxa ay sameeyeen 13% maalgashiga shisheeye ee gudaha Rwanda, sida uu sheegay wasiirka. dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda ee Rwanda ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay iskaashiga labada dal isaga oo yiri waxaan saxiixnay heshiisyo iyo is-afgaradyo khuseeya dhinacyo kala duwan oo ay ku jiraan ganacsiga, maalgashiga, difaaca, amniga, waxbarashada, dalku-galka ama fiisaha oo la dhaafo, dhaqanka iyo diblomaasiyadda iyo qaar kale oo badan. waxa uu sii raaciyay waxaan qudareynaynaa inaan yeelanno xataa wax intaas ka sii badan. waxaana sidoo kale ka wada hadalnay kordhinta ganacsiga iyo maalgashiga dalalkeena. waxa uu xusay wasiirka arrimaha dibadda ee Rwanda in ganacsiga laba-geesoodka ah ee ka dhaxeeya labada dal uu markii hore ahaa $33 milyan, haatanna uu gaaray $180 milyan. Rwanda oo lagu amaano horumarro xawli ah oo ay ka gaarayso kaabayaasha nolosha ayaa waxay dibana u soo noqotay mid ka mid ah gacanka hadallada aan la isu aaba yeelin adduunka. bishii Abriil sanadkii 1994 waxa wadankaas ka qarxay dagaal isir ku salaysan oo u dhaxeeyay Hutu iyo Tutsi. jabhado ka soo jeeda qoomiyadda Hutuga ayaana xasuuqay ilaa 800,000 oo qof oo ka soo jeeda qoomiyadda kale ee Tutsiga. falalka arxan-darrada ah oo socday 100 maalmood ayaa cara ka dhaliyay ciidda Afrika iyo adduunka kale, laakiin nasiib wanaag waa taasoo kabatay dhaaftayna bulshooyin aan weligood guda coloobin. Turkiga iyo Rwanda ayaa ku heshiiyay inay sare u qaadaan iskaashiga iyo xiriirka laba-geesoodka ah ee dhinacyada amniga, difaaca, dhaqanka, dhaqaalaha iyo waxbarashada sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Anadolu. maanta waxaan saxiixnay laba heshiis oo kale oo iskaashi ah. waxaan doonaynaa inaan sii wadno iskaashiga dhanka dhaqanka, sayniska, tiknoolajiyada iyo hal-abuurka. waxaan go'aansanay inaan kordhino iskaashiga dhinaca amniga iyo warshadaha difaaca, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Turkiga isagoo uu barbar taagan yahay dhigiisa Rwanda. waxa uu sheegay inay ka wada hadleen arrimo badan oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha, dhaqanka, difaaca iyo waxbarashada. sida ku xusan heshiiska iskaashiga guud ee aan hadda saxiixnay, waxaan samayn doonaa guddi joogto ah oo wadajir ah, ayuu yiri isagoo intaas ku daray inay noqon doonto hanaan kale oo ay ku qiimeyn karaan dhammaan dhinacyada xiriirka labada dal. Ankara waxa kale oo ay doonaysaa inay howlgeliso habka wada tashiga siyaasadeed ee la aasaasay sanadkii 2016 mar uu soo qaaday arrimaha ganacsiga ee labada dal, ayuu yiri xiriirkeena ganacsi iyo dhaqaale ayaa si xawli ah u kobcaya. miisaanka ganacsiguna wuxuu kordhay in ka badan 5 jibaar 3 sano ee la soo dhaafay. waxay ka dhigan tahay inay jirto suurtagalnimo baaxad leh, ayuu yiri isaga oo intaas ku daray inay labada dal tahay inay iska kaashadaan sidii loo kordhin lahaa miisaanka ganacsiga. sidoo kale maalgashiga Turkiga ee Rwanda waxa uu gaaray ku dhawaad $500,000. waxa ay sameeyeen 13% maalgashiga shisheeye ee gudaha Rwanda, sida uu sheegay wasiirka. dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda ee Rwanda ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay iskaashiga labada dal isaga oo yiri
waxaan saheynay heshiisyo iyo is-afgaradyo khuseeya dhinacyo kala duwan oo ay ku jiraan ganacsiga, maalgashiga, difaaca, amniga, waxbarashada, dalkugalka ama fiisaha oo la dhaafo, dhaqanka iyo diblomaasiyadda iyo qaar kale oo badan. waxa uu sii raaciyay waxaan qudareynaynaa inaan yeelanno xataa wax intaas ka sii badan. waxaana sidoo kale ka wada hadalnay kordhinta ganacsiga iyo maalgashiga dalalkeena. waxa uu xusay wasiirka arrimaha dibadda ee Rwanda in ganacsiga laba geesoodka ah ee ka dhaxeeya labada dal uu markii hore ahaa 330 milyan oo dollar, haatanna uu gaaray 180 milyan. Rwanda oo lagu amaano horumarro xawli ah oo ay ka gaarayso kaabayaasha nolosha ayaa waxay dhibana u soo noqotay mid ka mid ah gacanka hadallada aan la isu aaba yeelin adduunka. bishii Abriil sanadkii 1994 waxa wadankaas ka qarxay dagaal isir ku salaysan oo u dhaxeeyay Hutu iyo Tutsi. jabhado ka soo jeeda qowmiyadda Hutuga ayaana xasuuqay ilaa 800,000 oo qof oo ka soo jeeda qowmiyadda kale ee Tutsiga. falalka arxandarrada ah oo socday 100 maalmood ayaa cara ka dhaliyay ciidda Afrika iyo adduunka kale, laakiin nasiib wanaag waa taasoo kabatay dhaaftayna bulshooyin aan weligood guda culuubin. وابو بكر محمد oo idin leh waqtigiina ayaad ku mahadsantihiin ha mogaanina inaad ku xirnaataan Tifaftiri Media intaanu dib u kulmayno nabad iyo warsan.